بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واكرام حسين فارح ودلت deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qorraxay ku sugan degmada Shilaabo xilli 24 saac aynu ka soo gudubnay ee aad u sii xoogeysteen wararka la xiriira kiiska sargaalad Ikraan Tahliil Faarax oo markaasi muddo sanad ku dhow ah war iyo wacaal laga laayahay ayaa wararkii ugu dambeeyay ee markaasi soo baxaya waxay sheegayaan in Ikraan nooshahay isla markaasna ay ku sugan tahay goob kamid ah goobaha sida xoogan ay markaasi shabaabku uga taliyaan wararkii ugu dambeeyay oo aad hadal hayntooda u badatay ayaa kadib waxa soo baxay muuqaal la baahiyay kaas oo markaasi ay ka soo muuqatay gabar u muuqaal Ikraan Tahliil Faarax oo lagu sheegay in Ikraan iyadu ay tahay magaceedana Ikraan ku sheegtay waxa ay sheegtay in markaasi iyadu ay caafimaad qabto isla markaasna ay aad u bad qabto sidaas oo kale muuqaalku waxa ay kaga hadashay xogo badan oo dhow ah isla markaasna la xiriira muddadii sanadka ahayd oo ay maqneed muuqaalka ayaa sidaas oo kale waxa lagu baahiyay baraha bulshada isla markaasna hadal hayn aad u fara badan ay ka dhalatay muuqaalkani aan ku soo gudbin doono waxa uu soo koobayaa xogo dhowr ah oo sir ah oo la xiriira muddadii sanadka markaasi ahayd oo war iyo wacaal laga laayahay sargaalad Ikraan Tahliil Faarax muuqaalka ayaa sidaas oo kale waxa uu ka hadlayaa xogihii guud ahaan ku jiray intaas iyo marxaladihii kala duwanaa oo ay markaasi ka soo gudubtay sargaalad Ikraan Tahliil Faarax muuqaalkan ayaa baraha bulshada lagu baahiyay waxa aana ka soo muuqatay gabar u muuqaal sargaalad Ikraan Tahliil Faarax oo lagu sheegay in iyaduba ay Ikraan tahay gabadha ayaa waxay tibaaxday in Ikraan Tahliil Faarax ay tahay waxayna ka hadashay arrimo badan oo dhowr ah oo sir ah oo la xiriira maqnaashaheedii muddada sanadka ahaa tani ayaa mar kale waxay noqonaysaa mid sii ifinaysa wararka la xiriira in markaasi xog dheeraad ah laga helay maqnaashaha sargaalad Ikraan Tahliil Faarax arintani ayaa kadib waxay soo ifbaxday waraysigii tixaraha ahaa ee uu bixiyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore ee NISA isla markaasna taliska nabad sugidda Soomaaliya xukumayay xilligii sargaalad Ikraan Tahliil Faarax la weynayay Fahad waxa uu xusay in markaasi 26 Juun habeenkii war ugu dambeysay Ikraan isagu uu dalka ka maqnaa hasaatee xogo dhowr ah iyo baaris nabad sugiddu ay sameysay ay ku soo ogaatay xogo dhowr ah oo la xiriira kiiskan waxa uu sidaas oo kala tibaaxay kiiskani in uu yahay mid la siyaasadeeyay isla markaasna siyaasad ahaan laga lahaa hasaatee waraysigiisa ayaa arinta markaasi ugu adag waxa ay noqotay kadib markii shakhsiyaad ka tirsan dawladda Soomaaliya uu si toos ah u carabaabay in ay ka dambeeyeen kiiska maqnaashaha sargaalad Ikraan Tahliil Faarax waxa uu na xusay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Salaad iyo sidaas oo kale wasiir xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala in ay ka dambeeyeen dhiibista sargaalad Ikraan Tahliil Faarax waxa uu xusay in markaasi Al-Cadaala isagu uu gaari ku qaaday Mahad Salaad uu u geeyay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roblena shaqadoon ay markaasi u ahayd waxa uu xusay shakhsi lagu magacaabo Mahad Karataay oo kamid ah xubnaha al-shabaab in loo gacan galiyay Mahad Salaadna uu u gacan galiyay sida uu hadalka u dhigay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir mar uu kaga hadlayay waraysigii tixana ahaa ee aadka u dheeraa taasi ayaa waxay noqotay mid amakaa ku noqotay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxayna sidaas oo kale wax iska weydiiyeen sida ay ku dhici karto arinkani intaas kadib baraha bulshada waxa ka soo ifbaxay warar dhowr ah oo la xiriira maqnaashaha sargaalad Ikraan Tahliil Faarax muddo sanad ah kadib taas oo markaasi laba waraysi oo isxigtay inta badan shaki badan uu ka dhashay waa waraysigii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee markaasi musalsalka aadka u dheeray ahaa iyo sidaas oo kale waraysigii Jamaal Cusmaan oo u shaqeynaya General Four uu la yeeshay al-shabaab isla markaasna xubnihii hadlay uu qayb ka ahaa Mahad Karataay warbixinta Jamaal uu sameeyay ayaa dadka markaasi korfaya siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan dadka sida aadka ah ugu dhuundaleela kiiskani waxay kala bixeen arrimo dhowr ah oo la xiriira kiiska sargaalad Ikraan Tahliil Faarax labadaasi waraysi oo isxigta kadib waxa soo baxay warar sheegaya in Ikraan ay nooshahay isla markaasna ay ku dhaqan tahay goob kamid ah goobaha sida aadka ah ay ugu xoogan yihiin shabaab isla markaasna si caadi ah ay ula nooshahay iyada oo markaasi bad qabto waxa sidaas oo kale shakhsi ka soo muuqday Facebook gaar ahaan markaasi waxa uu xusay in Ikraan xogteeda uu hayo isaguna qaraabo dhaweeyeen waxa uu xusay in Ikraan ay nooshahay sabab ay la sugan tahay isla markaasna nin cadaan ah oo u dhashay Bangladesh lagu daray
waxa uu sidaas oo kale muuqaalka uu soo duubay uu markaasi si kalsooni leh ka muuqata uu kaga hadlayay arrimahaas. waxa uu tilmaamay markaasi ninka halkaasi ku sugan oo ay u dhaxday sargaalad Ikraan Tahliil Faarax sida uu hadalka u dhigay muuqaal ahaan nolosha uu halkaasi ku haysto iyo sidaas oo kale awoodda uu ku dhaxleeyahay shabaab. waxa uu xusay in nin gaaban oo cad uu yahay isla markaasna gaariga saarifka loo yaqaan uu halkaasi ku socdo. waxa uu xusay in shakhsiyaadka ugu awoodda badan shabaabka markii dhexdooda la yiraahdo uu ku leeyahay. waxa uu sidaas oo kale kaga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira. waxa uuna tibaxay in xilligan sargaaladu ay uur u leedahay 3 bil ayuu ku sheegay nolol caadi ah oo markaasi nadiif ah kalsoonina ay ku dheehan tahay in ay ku nooshahay. hase ahaatee arrintaasi ayaa lagu kalsoonaan waayay kadib markii ay soo baxeen arrimo kale oo dhowr ah. waxaa sidaas oo kale Facebook ka soo muuqatay maamo kale oo sheegtay in Ikraan iyadu ayeeye ay u tahay ayna soo korisay. waxa ay xustay in dhammaan arrimahaasi aan lagu kalsoonaan karin. waxay eedeen u jeedisay Fahad Yaasiin iyo xubnaha kale ee ka hoos shaqeeya. waxayna tibaaxday in arintani iyagu gadaal ay ka soo riixayaan sida ay hadalka u dhigtay. waxay sidaas oo kale xustay in tani ay tahay mid markaasi wax badan la iska weydiinayo iyada oo ku dartay sidaas oo kale in ay jiraan shakhsiyaad doonayo arintani in si gaar ah ay kaga shaqeeyaan. hooyadani waxa ay xustay in dhammaan arrimahani ay yihiin kuwa la doonayo in madmadow iyo sidaas oo kale lagu daboolo kiiska sargaalad Ikraan Tahliil Faarax oo markaasi ay ku sheegtay in tani dan gaar ah laga leeyahay oo ah buunbuunin. waxayna si aad ah u weerartay sidaas oo kale maamo kale oo ku sugan Mandheera oo sheegtay in iyadu ay Ikraan dhashay. waxay xustay in reer qaali guhaad si aad ah loo yaqaano Ikraan hooyadeedna markaasi ay qaali guhaad tahay aabaheedna Tahliil Faarax uu yahay oo nin injineer ah la garanayo. maamadani ayaa aad waxa ay u xustay in markaasi ay jirin wararka sheegaya baraha bulshada la isla dhaxmariyo ee Ikraan in ay dhashay hooyada kale. daawadayaal wararkii ku soo kordha waynu idiin soo gudbin doonaa haddii Rabbi uu ka raali noqdo inaga oo markaasi dhinacyo dhowr ah iyo waxyaabaha ku soo kordha ka eegi doono. hooyo qaali guhaad horay waxay u sheegtay wararka ka soo baxay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee ku aadana in markaasi al-shabaab ay Ikraan u gacan geliyeen Mahad Salaad al-Cadaala iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. waxayna ku tilmaamtay taasi in ay tahay mid boor isku qaris ah oo haddii ay jirto hore looga doonayo in markaasi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu warbixinteeda si toos ah u soo dhameystiro maadaama xilligaasi uu awood lahaa. xilligaanina ay sheegtay in cadaaladda uu ka dhuumanayo. kiiska sargaalada ayaa mar kale muddo sanad ah soo ifbaxay. waxa uuna marayaa xilligan mid cirka isku sii shareeray. waxaynu eegi doonaa mar walba oo isha aynu ku hayni doonaa wararka iyo waxyaabaha ku soo kordha iyada oo weli Mahad Salaad uu baaritaano kiiskaasi ku xariira uu wada welina uusan markaasi soo bandhigin. shalay ayay ahayd markii la weeraray Cabdullaahi Aadan Kulane markaasi oo xilligaani ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11aad isla markaasna laga qaaday ilaalo ka tirsaneed nabad sugidda Soomaaliya gaar ahaan ciidanka Duufaan oo markaasi gurigiisa ku sugnaa. Cabdullaahi Aadan Kulane jiis waxa uu qayb ka yahay xubnaha sida aadka ah loogu eedanayo kiiska sargaalad Ikraan Tahliil Faarax. waxaa sidaas oo kale isaga Yaasiin Cabdullaahi Fari iyo sidaas oo kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ay qayb ka ahaayeen xubnihii bundhiga u ahaa kiiska Ikraan Tahliil isla markaasna sida aadka ah loogu eedeynayay oo xog badan koog. waxaa bilowday sida dadka badi ay qabaan baaritaanada la xiriira kiiska sargaalad Ikraan Tahliil Faarax ee markaasi ku aadan in wax badan Mahad Salaad xilligaani uu baarayo isla markaasna uu wado baaritaano dhowr ah. Mahad ayaa la kulmay xubnaha markaasi saraakiisha ah ee ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya. waxa uuna wax ka weydiinayaa xog ogaalnimada kala xiriira kiiska sargaalad Ikraan Tahliil Faarax oo muddo sanad ah maqan. baaritaanka weli waxa uu yahay mid socda. hase ahaatee weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay hoggaanka cusub ee taliska nabad sugidda Soomaaliya ee ku aadan halka ay wax marayaan. guud ahaan warkii oo aad kala socoteen barteena YouTube daawadayaal halka ayaan ku soo gabagabeynayaa. waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horreysay waxaynu kaa codsanaynaa in subscribe aad noo saarto gambaleelka aad furato si mar weliba aad u hesho wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan idinkugu soo gudbino
qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb oo raxdaada kaaga aadan wararkii warbixinada aan kuu soo gudbinayno muuqaaladeena sii sheer garay oo asxaabtaada la wadaag si mar waliba ay u helaan wararkii ugu dambeeyay ee dunida daafaheeda ka dhaca. daawade waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. muuqaalkayaga oo like aad saarta wuxuu naga caawin doonaa asxaab fara badan oo sidaada oo kale wararkii ugu dambeeyay doonayo in aynu gaarsiino mar kale iyo mar kale. aad ayaad u mahadsantahay.